Asalaamu calaykum waraxmatullah asxaabta ku xiran janaalkeena ogaalo maanta waxaan ka hadlaynaa 6 qof oo ay tahay inaad gebi ahaanba ka fogaatid sababta aad ugu fogaanaysaa waxay tahay inay khatar ku yihiin caafimaadkaaga iyo dadnimadaada haddii aad u baahan tahay inaad ku noolaatid nolol wanaagsan iyo caafimaad iyo farxad haddaba ka fogow 6daas qof ee aan kuu sheegi doono ku soo dhowaada mowduuceena maanta qofka ugu horeeya ay tahay inaad ka fogaatid waa qofka xanta badan qofka ka hadla dadka kale arrimahooda qofka ka sheekeeya dadka kale xumaantooda weliba ayagoo aan la joogin haddii aad u ogolaatid midka wax xanta inuu agtaada wax ku xanto waxaad ogaataa adni inuu ka xaman doono ama uu kaa sheekayn doono marka aad kala tagtaan waxaad awoodaa inaad joojiso in agtaada qof lagu xanto adigoo ku dhahayo jooji xantu maahan wax wanaagsan sidoo kale waxaa kuuga adkaan karta mararka qaar inaad ka fogaatid dadka wax xanta waayo waxay ka mid noqon karaan familkaaga asxaabtaada iyo dadka shaqada ay kaala dhexayso laakiin waxaad awood u leedahay inaad ku caawiso inaad u sheegto inay xantu waxba soo kordhinayn sidoo kale aad xasuusiso in diinteenu ay reebtay inaysan xantu wanaagsanayn oo ay la mid tahay anigoo cunayno miidka walaalkeena oo ceyrina haddaba si aad ugu noolaato nolol wanaagsan aadna u noqoto qof xaqiijiya hadaf walba uu leeyahay waa inaad ka fogaataa dadka xanta badan qofka labaad oo ay tahay inaad ka fogaatid waa qofka madaxa kaa neceb qofka mar walba ku yasa qofka mar walba ku murmiya qofka mar walba aan ku ogolayn inaad fikirkaaga dhiibato qofka mar walba fikirkaaga ka hormariya kiisa qofka mar walba dantiisa ka hormariya dantiisa haddana kuu sheegaya inuu saaxiib kula yahay oo mar walba aa wada socotiin waxaad isweydiinaysaa sidee ku garan karaa qofka noocaas ah qofkaas waxaad ku garan kartaa marka aad damacdo inaad sheegto wax wanaagsan mar walba wuxuu kaaga dhigayaa xumaan oo hadalkaagaba wuxuu u gadinayaa dhanka kale haddaba qofka labaad oo ay tahay inaad ka fogaatid haddii aad u baahan tahay inaad ku noolaatid nolol wanaagsan oo caafimaad leh aadna horumariso hadaf walbo aad leedahay waa inaad ka fogaataa qofka madaxa kaa neceb qofka saddexaad oo ay tahay inaad ka fogaatid waa qofka waqtiga kaa lumiya mise qofka loo yaqaano time waster dadka waqtiga lumiya waxay ku imaanayaan dhowr nooc marka waa inaad fahantaa nooca waqti lumiya ee aad haysato dadka qaar waxay waqtigaaga ku lumiyaan sida kulamo aan la qorshayn wada socod aan la qorshayn muranka sida ciyaaraha waxa aan adiga faa'iido kuu lahayn haddii uu qof kuu sheekaynayo waa inaad dhahdaa ii sheeg inta keliya ee ugu muhiimsan ha iga lumin waqtigayga waxa aanan ahayn inta aan rabno inaan ka hadlno kuwa waqtiga lumiya ma yaqaanaan sida waqtiga loo maareeyo sidaa darteed waxay jecel yihiin inay waqtigaaga lumiyaan haddaba qofka saddexaad oo ay tahay inaad ka fogaatid gebi ahaanba waa qofka waqtiga bilaash kaaga lumiya aan wax micno lahayn waqtigaaga mar walba ku qaata qofka afaraad oo ay tahay inaad ka fogaatid waa qofka lacag raaca ah waa dadka mar walba kuu dabardo inay biilkaa kula isticmaalaan waa qofka mar walba aan joojin inuu lacag ku weydiiyo waa qofka raba inuu mar walba lacag jeebkaaga ku harin haddaba sidee ku garan kartaa marka qofka lacag raaca ah qof walba dadka waxaan waa fahansannahay inay asxaab leeyihiin asxaabaad leedahay meelaa la isku raacaa lacagaa la isticmaalaa isguud way fiican tahay mar in asxaabtaada aad furatid laakiin qofka mar walba jecel inuu lacag jeebkaaga ku harin sidee ku garan kartaa wuxuu ku weydiinaya wuxuusan rabin uusan muhiim u ahayn inaad u iibso wuxuu ku leeyahay adoo waddada maraay shay hibilaa u baahanahay shay aadan soo qorshayn uu ku leeyahay ii iibi qofkaas maa qof lacag raaca marka qofka afaraad marka oo ay tahay inaad ka fogaatid gebi ahaanba waa qofka lacag raaca oo mar walba loo yaqaano money grabbers oo jeebkaaga inaysan lacag ku harinba mar walba daneeya marka waa inaad iska ilaasisaa dadka noocaas ah waa fahansannahay soomaalida mar walba waxay isweydiinayaan qofka asxaabaa leeyahay lacag si guud bay fiicanta adduunyada dhan ay ka jirtaa laakiin qofka lacagtaada mar walba qofka biniaadanka dadka waxay dhahaan haddii aa u baahan tahay inaad nolosha horumar ka gaartid 3 shay waa inaad taqaanaa mar walbaa la isdhahaa shayga koowaad inaad taqaanid time management waqtigaaga si loo maaray waa inaad taqaanaa sidoo kale waxay dhahaan cash flow management lacagta qulqulka kusoo gelayso meeshay ku baxayso meeshay gelayso waa inaad taqaanaa sidoo kale waa inaad taqaanaa people management sida dadka loo maareeyo hadda marka waxaan u dan leenahay cash management ma yeelan kartid haddii aad leedahay money grabbers badan dad lacag badan oo ku weydiiyo mar walba lacagtaada kula isticmaalo aan mar walba kala joogsi lahayn oo mar walba ku dhaho lacagaa u baahanahay shaygaas ii iibi adigoon ku talagelin xataa uu qofku iska kaa weydiinayo marka qofka afaraad oo ay tahay inaad ka fogaatid si aad nolol wanaagsan ugu noolaatid waa qofka lacag raaca ah ama mar walba jeebkaaga raaco qofka shanaad oo ay tahay inaad ka fogaatid waa qofka xaalad abuuraha afka qalaadna lagu yidhaahdo excuse makers waa qofka mar walba lasoo taagan raaligelin haddaad ballantaan uu soo daa wuxuu ku leeyahay raali noqo haddii aad dhahdo meel aan isku raacayna wuxuu ku leeyahay waa xanuunsanahay kuma raaci karo haddii aad dhahdo meel hibil aan joogaa hibil aan ku soo maray wuxuu ku leeyahay
waan mashquulsanahay soo marin. Waa qofka mar walba xaalad sheegta, gaajaysan, xanuunsan, jiifa, mashquulsan, mar walba xaaladda adii aa weydiisid oo wuxuu ku leeyahay saaxiib waan mashquulsanahay, raalli noqo. Haddana aan ku weynin raalli ahaw, waan ka xumahay, saas baa dhacday, mar walba xaalad buu abuuraa. Hadalka adiga aad weydiisid markaad garab ugu baahan tahay buu hadalku wuxuu kuu sameeyaa xaalad kuu abuuraa. Marka qofka shanaad oo ay tahay haddii aad u baahan tahay inaad nolol wanaagsan ku noolaatid oo aad rabto hadaf walba aad leedahay inaad xaqiijisid, qofka shanaad oo ay tahay inaad ka fogaatid waa qofka xaalad abuuraha ama excuse makerska. Lixaad oo ay tahay inaad ka fogaatid waa qofka aqoon-yahan ismoodka. Ma ahan jaahilka, waa aqoon-yahan ismoodka. Qofka xambaarsan fikradaha qaldan asagoo kaaga dhigayo inay cilmi yihiin. Waxaa jiro dad badan oo aqoon leh lana qaato ereydooda, laakiin ma ahan inay yaqaanaan wadadii aad ku hormari lahayd mise aad ku guulaysan lahayd. Waa inaad kala xulataad dadka aad wax ka qaadanaysid ama aad fikirkooda qaadanaysid ama aad wax ka dhagaysanaysid. Laakiin dad waxaa jiro hadalkooda kaaga dhigayo cilmi oo qaab cilmi ah kaaga dhaadhicinayo waxaan ay ku leeyihiin waxaan waa cilmi. Marka qodobka lixaad oo ugu dambeeya oo aan kusoo gabagabeynayno barnaamijkeena oo 6dan qodob aan ugu hadlaynay, qodobka lixaad oo ugu dambeeya waa inaad ka fogaataa qofka aqoon-yahan ismoodka ah. Dadku waxay dhahaan jaahilnimada ugu weyn waa qofka inuu sabirto inuu wax walba yaqaano, yacni inuu aaminsan yahay shay walba adduunyada yaalo inuu wax ka yaqaano. Marka qodobka lixaad ee ugu dambeeya waa inaad ka fogaataa qofka aqoon-yahan ismoodka ah. Sidoo kale macquul maahan 6dan qof ee aan soo sheegnay dhammaantood inaad ka wada fogaatid, laakiin waxaa muhiim ah nooca bini'aadan ee la tacaamulaysid ama aad la nooshahay ama aad asxaab tihiin. 6dan qodob oo aan soo sheegnay ku yahay inaad fahantid ayaa muhiim ah. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan like saar. Haddii aad markii ugu horeysay ay tahay aad nusoo booqatid fadlan subscribe sidoo kale nagu caawi. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi.